الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولاشين سمسم كسو دواada janalkeeda asxaabta meel ba ay joogtiin maasha Allah khayr iyo baraari bashbashay aan hirjiha alxamdulillah anaga caafimaad qabnaa idinkan waxaan hirjiheena caafimaad qab insha Allah inta jirin Allah caafiyo inta maxaa caafimaad qaystan ilaa u siyaadiyo waa mahadsantihiin saaxiibayaal meel ba ay joogtiin waa idin salaanay maanta waxaan sameysanaynaa qadadan kusoo dhawaada hilib ayaan sameysanaynaa oo ciish lagu cunaayo ما شاء الله تبارك الله سود الدواء أصحاب من الباجوكتين وعدين ما هتعلهنا أنت نقصوا برتوا سودويهنا كعمة فرن ويجي فرن يعني تسافي نقصوا دواء أنت نالي جوكتن نقولي جوج إن شاء الله waxaad ku codseena channelkeena noo saarteen subscribe like share comment naqsoo dhiirigeliseen inta soo codsigeena inaad tixgeliseen Allah raxmaanka ka dhigo aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin insha Allah meel ay joogteen Allah idinku xafido anaga inta muslim Allah na xafido asxaabteena noo soo dhawaada insha Allah khayr baraari bashbash ku soo dhawaada hadan hilibka ayaan dib ka saaran ma sha Allah hadii aan salaanta intaas ugu gudbo hilibka ayaan dib ka saarno ku soo dhawaada qadadeena maanta insha Allah qado waxaan sameeynaa hilib oo aan gaduudihayno oo qudaar korka ka saarayno iyo ciish oo lagu cunaa insha Allah maahan wax maxayra aad u sii waaweyn alxamdulillah ilaahay noo sahlay inta taqaano waa taqaana alxamdulillah inta qaana ka faa'iideysato ma sha Allah tabarakallah meel walba ay joogtiin Allah idinku xafido hilibka ayaan hadda dib ka soo saaranay basashii oo gaduudinay ayaan ku darsanay hilibkii ma sha Allah tabarakallah alxamdulillah Allah raxmaanka ayaa mahad leh ilaah mahad leh in loo mahad celiyo mahad kooda Allah raxmaanka askal idinkana waa mudantiina idin mahad celino إن شاء الله تبارك الله سود الدوادة ما شاء الله تبارك الله الرحمن سود الدوادة ميل والبقى جوكتين إن شاء الله اللي بكدب كسارو سليتي بصشي وجدودي كدرسو سفي عن وقلبسي مركا سفي عن أقص قستت أما قلبسي ست إذا جاشا وده أما قلبسيس أما قص isku dhex qas basashii saliid iyo ma sha Allah nin walba yaqaana horta hilib karis laakiin waxyaabo oo xaaje oo lees dheeriyaha oo yar oo macna dhan aan lahayn sida maxay hilibka marka qofka dib ka saarto ala duul hadii biyo ku dartid hilibka dhan dacamkiisa ka baxa hadii aad maxay aad degdegsan tahay oo sidaad hilibka iyo ku bislaado biyaha ala duul biyo oo ku dartid ما في عنو وحافي عن هيلبك مركا كريس إنا بيو جوني أسي سارته عشان هيلبك صفي عنو كاغب سلاده وبي كل المرة والبقى قدر تافي عن وصفي عن دعم هيرسر وددم هيرسر وصبحة هدي أبي كل الكرك أو قدرت لكن بي قوة قدرت ما في عنو ددن كيس لين مصبحة هاي وحياه بدنا جيران محيرها وليس ديري هودتك محيرة سر أو كما قنتها إيه وهدي هيلبك دب كيس كساتو بيس وسو دالن بيس كردستين دعم كيس مكوفي عنها هاي بيس مركو رأسها صوت دالو markuu bihiis soo dhalo oo guursado bihiis ka bacdi la ku daray biyaha ku daraysan biyo kuleel ku sii hahay marka heer sare ku naqa maraqada ka dhigaysan maraq wuxuu ku soo baxaa heer sare ah hadii aad ka dhigaysid maxay rahaa hilib gaduudan oo macaan ku soo baxa buhaaraad anwaac inta jeexsha soo diyaarso xawaashiyada ama buhaaraadka sida u taqaanid anwaac jeexsha soo diyaarso ku yaal filfil aswad iyo maxay rahaa huruud iyo milix iyo waxaan soo diyaarsaday aan ku daray bahaarad mushakil bahaarad maxay rahaa kamoon kabsarada kan la shiiday iyo maxay rahaa filfil aswad hadii arta bas xabash oo ku darsan kartaa aniga laakiin filfil aswad aan ku badashay bas xabash kuma darsanin bas xabashigana dacam fiican oo siyaa laakiin waxaan jeclahay inaan ku darsado marka oo aan maraq ka dhigayo jeclahay bas xabashig hadda hilibkan waxaan rabaa inaan gaduudiyo oo hilib gaduudan aan ka dhigo sidii hilibka furanka lagu sameeyo camal digsigaaga leh ku gaduudi kartaa hadii aad furan rabtan waa geysan kartaa marka asxaabta meel ba ay joogtiin waa idin mahad celinayna soo dhawaad insha Allah hadda ilan hadii hilibkan biyo lagu madan waxaan dhan biyihiisa leeyahay isagoo dhal biyahan oo si guursaayeen xawaashidii hadda ku daray biyahan markii guursadaan ka bacdina biyo kuleel diyaar u ah oo lagu daraayo ma sha Allah tabarakallah alxamdulillah inta maxay raad taqaan Allah u saadiyay inta aan qaanine barasho wanaagsan hilib heer sare oo jilcan oo ku naqaha hadii amaajiga nacibta oo dadka xasaasiyada maajigu waa iska dhaaf kartaa waxa ku darsan kartaa milix bis hilibka aad u macaan hadii warta maajiga lagu kariyo waa dhadhan fiican oo si laakiin dad waxa jiro maajigaas markay dhadhamiyaan korka xog iyo xasaasiyad oo imaahay ayaga dhan xasaasiyo kornyuc ku dhacayo ama xasaasiyo sida u taqaanid marka dadkaas waa iska dhaafi karaan waxay ku bedeli karaan cusbadooda caadiga ah dad badan arkaan oo maajiga ma isticmaalaan dhahayaan waana runtood sababtoo wax ku dhiwayo faa'iido ku aheeno maxay xasaasiyo ku keenay ma fiicno laakiin alxamdulillah inta uu dhibaynina dhadhan fiican oo cuntada siiya maajiga dhadhan fiican oo cuntada siiya inta uu dhibayn oo ku darsayaan insha Allah ku darsada inta oo xasaasiyo waxba u ahaan
alxamdulilah aad u maceeya bariiskii hadii lagu kariyo aad u maceeya maasha allah suugada baastada hadii lagu kariyo aad u maceeya maasha allah marka waxyaabo badan ay jiraan oo maxay dadka dhibaayo waqti maxay oo xasaasiya haysto dhibaayo oo iska dhaafaysa iyadoo caqligeeda way qabtaa marka waa kaasa hilibka dirtan saas oo naqayay maasha allah tabaarakallah heer sare ku soo baxa hilib heer sare ku soo baxa maasha allah hadda waa ka kursaday isaga dhan bihii oo lagu daray waa kursaday maasha allah tabaarakallah saas oo u gaduuday biyo oo kuleel hadii aad ku darto horo kaaga bislaha ma ku dhibaayo yani waqti badan ba ma ka qaadahay gaaska ma ka dhameeyahay hadii aad koronto ku sameeyso korontada maxay bisirci kuugu bislahay iyadana saas oo u gaduuday oo heer sare u naqayay caraf iyo maxay qurux intaba waa isku darsay maasha allah marka asxaabteena meel baa joogtiin waa idin mahad celinayna noo soo dhawaada insha allah khayr iyo baraari bashbash qof walba meeshuu joogo allah ku siiyo allahna ku xafido allah raxmaanka ayaa mahad iska leh mahadda koowaad ilaah loo mahad celiyaa bini aadamkana oo mahad celiso waa kaa mudan yihiin maasha allah tabaarakallah hadeerne basal abyad iyo labo barbarooni oo kala nooc iyo basal akhdar aan soo jarjartaan korka ugu daraaya allah soo abdamihaya jaahis oo saas ku yahay ciishkaaga soo diyaarso biyahaada qabow soo diyaarso macsiir waxaa jeceshahay qudaar soo diyaarso haddii aad jeceshahay qado iska khafiif oo maxay oo ciish iyo hilib leh oo saas la iskugu cunayo waa bariis iyo waxaas ma loo baahna maanta qadadaas ayaa maanta niil sheer galayna faa'iidaysi wacan kusoo dhawaada meel baa joogtiin hadaad qadaa ka dhigi kartaa hadaad casho laakiin dadka badan habeenkii hilib inay cunaan ma jeclo waxaa fiican maalintii wax culsana cunto ay ka baxdo habeenkii wax khafiif ah cuntooda khafiif ah seexatid saas ayaa fiican marka hilibka hadda waa soo gurayna maasha allah diyaar waaye saxankaaga soo diyaarso hilibkaaga soo guro bismillah inaad dhahdid jaleec oo macaan oo caraf inta waa isku darsay maasha allah faa'iidaysi wacan asxaabteena alxamdulilah alla waa mahadle ilaaha noo sahlay dhagdhag le waayo waxaad shaqadaada hore u boobsiiso ee hore uga soco hilib indhahana u roon afkana u roon ku naqaadi asaan samaysatid hilibkii jaahis aan kasoo dhignay waa soo gurnay ciishka waa soo diyaarinay ansalaato yaraan soo diyaarinay biyo qabow soo diyaarso casiir soo diyaarso wixii aad ku cabileed soo diyaarso bisinka u qabo waa qadadaada dhagdhag siiso horena uga soco shaqadaada hore u gal maasha allah fideogan maanta waa gaabnaa intaan ka gaarayna fideoga xigo haddii allah raxmaanka noo ogolaado intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa meel ay joogteen baraari bashbash leeka sheerka commentiga subscribe-ka kulli dhinaciina waay الله يدينك سوق هذا أنا الله نسوق أرسي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.